ولا ليال بريا عين إله سبحانه وتعالى برينا وأر مهم آد أيين النوبة النهي وإله سبحانه وتعالى وحينا أمر يا إن نبرنا والله وحليه ادعوني أستجب لكم وربريا واندك أجيب يا نبينا عليه الصلاة والسلام حليه من لم يسأل الله يغضب عليه قفك إلهي سبحانه وتعالى أن وحبوي ديسا يا الله سبحانه وتعالى أن برين إلهي سبحانه وتعالى وكعرانيا أرنكا وحا كدوان بني آدمك وبني آدمك مركاد بريدو أيو عرانيا هلك الله سبحانه وتعالى مركاد بري ويدو وعرانيا وحديثكم حوت المامية من لم يسأل الله يغضب عليه قفك أن إلهي وحوي ديسا وكعرانيا شنكي شاعرك ها قبياك أنا واتلها الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب إلهي سبحانه وتعالى وحو عرونا يا مركز بريدي سكتكتو بني آدم كنا وحو عرونا يا مركز بريدو عد مركز بريدو كفر حيسا يعد مركز بريدو عرونا يسا أيهما أقدم دو عد يعني وحوية مركز بريدو كفر حيسو أيا مهم إنينو برينو ولا المقطع عن يركوبا وحين كنت المامينا دعاء سيدي مهم كأوتهاي iyo yani waxa weeye su'aalo ay dadka qaar isku dayaan inay ducada ku bushiyaan ayaynu insha Allah ta'ala aynu ka jawaabi doonaa waan soo koobnaa insha Allah marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar hadduu ina amrayo inaynu barino nabiguna ahadiis badan ku tilmaamayo bal uu nabigu kaleey salaatu wasalaam yiri ad-du'a huwa al-ibada du'adu waa cibaado oo nabigu kaleey salaatu wasalaam uu tilmaamayo dadka ka ugu caajisaysan inuu yahay ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan barin وأعجز الناس من عجز الدعاء بأي نبي يري دتك وحا أقو عاجسيسا كإلهي سبحانه وتعالى بريدي سيد عاجسا كعاجسا أي دتك أقو عاجسيسا وإلهي سبحانه وتعالى وإنه دويه إنه نبرنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أي إلهي سبحانه وتعالى ليه هذه أدوما يدبرين يعني كاوي ديان وندوه كي بريدي سوان أقبليا هذا بلوثرس أو إلهي سبحانه وتعالى واحد على ثلث الأخير هبينكي يعني وحوي إنه سود دقو سماء الدنيا أيماته وده وريا وحي ويدي سنة يوانسية وريا دم بداف ويدي سنة فأغفر له يعني وحوي عن قدام بداف يعني كدم بداف أقبله أي إلهي سبحانه وتعالى وترمامي ولا ريال وفرسد غالي أهوي أرنكس وفرسد يعني وحوي قالئة marka mar haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala say noogu dhow yahay ducadeena uu aqbalayo kuna farxayo waxa muhiim ah inaynu Ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu barino hadaba yani waxa weeye dadka qaar ba waxay dhahaan oo mar hadii shay kasta la noo sii qadaray oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ila yawm al-qiyamah waxa dhacaya uu sii qoray waxaad helaysay waxaad waayasana uu sii qoray sababta ducadan looga baahan yahay waa maxay waa su'aal ay dadka qaar keenaan oo ay u manaanayaan inay tahay su'aal aad u adag ya ay dadka qaar keenaan su'aashaas wala jawaabteedu waxay noqonaysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu shay qadaro asbaabtiisana wuu la qadaraa oo Ilaahay ma qadaro shay asbaabtiisa ka maran إلهي سبحانه وتعالى ما قدره دعادنا وحي كم انتهي أسبابتي يا إن ضوح عنتا إن دي يعني وحوية قاتشوتا ومقدورة ولا قدري سبب تيدر لا قدري ومحي دي وإن ضوح عنتو قاتشوتو صومها إن يعني وحوية أي وحصوب بحان للك الدرق إيو أي كصوب بحان ومقدور وشي اللي قدري سببت لا قدري ومحي دي وإن ورابيو الناف يعني وحوي أو دينتو أو هيبكي صلعنا ومقدور سببت لا قدر ومحي يعني وحوي دوائن لجورعه يا إن كان الله قالوا قفك كان ينهار بوالله سيقري سببت لا قدر ومحي
وأعمال إلا لا يماطو أي لا قدري marka shay kasta sababtiisa wala la qadaray shay sababtiisa ka maran yani waxa weeye ma jiro waxa leedahay wala isi qadaray wax kasta maxaan duco uga baahanahay dee mar hadii lagu sii qadaray waxaad cunayso dherg iyo gaajo kaad ku sugan tahay lagu sii qadaray dee cuntada iskaga tag oo hadii haraad iyo ma garanaysa hadii lagu sii qadaray dee waxa weeye biyo cabitaanka iskaga tag waxa kada يعني دعادني وسبب لمد عنيتانك وسبب لمد عنيتانك marka waxa weeye ducadana waa sabab kamid asbaabti Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku sii qadiray wax laakiin ducada la ma sababti walidaalika nabiga kaleey salaatu salaam markuu ninka u yimid ku yiri nabi allah hasha ma xalaamsta Ilaahay baan tala saartaa muxuu ku yiri hasha xid Ilaahayna tala saaro sababta la kale marka hore orado de wadada laamiyadu marayaan inta ka socoto de waxa tiraahdo Ilaahay bay qadaraan dhimanayeen kale de sababtaad ku dhimaysay waad la timi sababtaad ku badbaadaysan waad la timi dilaamigi ma tagin wad ka baydh marka dadka noocaas oo kale inay fakaraan ayaa yani waxa weeye muhiim ducadu hadaba shayga kale muhiimka aynu tilmaamayna waxa weeye arrinka ducada ku saabsan dad badani waxa ay sameeyaan sida ibn qayyim uu tilmaamay kitaabkiisa addaa wa dawaa ilaahay subhanahu wa ta'ala bay baryaan si wacan bay u qaabilaan yani baahidooda ducada u qaba ayuu ilaahay weydiistaa ilaahay buu si wacan u qaabilaa ikhlaas buu la yimaadaa waqti ducadii la aqbalay buu ku beegaa markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ducadiisa ka aqbala markaas mid kale oranaya الله أكبر دعاء ودعاء مهم دعاء يان لغا تغ لفظي دعاء ايو كدغيا او قادنيا او استعماليا هذا اسبابتي وكتغي اسبابتي هيد يعني الله سو عنو قابلو ان يعني waxa weeye waqti ducada la aqbala oo yani waxa la yimaado asbaabti oo dhan buu ka tagay ama xasano iyo ajar uu sameeyay bari ayuu ilaahay ku bariyo ilaahay waniga xasanadii sameeyay ilaahay maanta waxays markaas ilaahay shukran li xasanati shukran uga dhigayo ay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiya arrinkii tabaadna mid kala yimaado intuu asbaabtii ka tago ayuu ducadii ku dhigaya ducadii ayuu yani waxa weeye ku dhigaya markaas hadhow laga aqbali waayo ila asbaabtii uu ka tagay arrinka waxa la mid ah oranaya dawa qof dhakhtar soo qoray markuu u soo qoray ayuu qof baa dawadii waxa uu isticmaalay sidii loo baahnaa waqtigii loo baahnaa ayuu isticmaalay qadarkii looga baahnaa ayuu isticmaalay markaas uu ku caafimaad mid kale oranaya ducadani waa cajiib waxay ahayd dawadani waa cajiib dawadii oo kaliya ayuu yani wax iska cunaya asbaabtii buu ka tagay oo ahayd in waqtigii loo baahnaa sidii loo baahnaa qadarkii loo baahnaa uu ka isticmaalay Soomaha marka sheekhu wuxuu oranayaa ducadu waxay la mid tahay dawada oo kale ducada hadii aad u isticmaali wada qaabkii loo baahnaa oo aha marka hore qof khaalisa inaad tahay oo ilaahay si wacan u qaabisho waqti ducada la aqbalana aad la timaado يعني وحوي قف دنبي كجرو أو دنبي استعماله أو يعني وحوي دنبي كتوبات كان أتاهي وقف ده إلهي وحكي أقبل قراءات هاي إلهي سبحانه وتعالى الدعاء هذا مهوجنيو أما الله الدعاء هذا إمكو كسين جواب تيدا أما آخره دبكو قدقي أما يعني وحوي بلايا سوسعتي أيو إلهي سبحانه وتعالى كاقد دفاعي مر اللي بالدعاء هذه يعني وحوي كمسي يسو ويه أنا كاوحا لمي دابو شيخ ورانيا qaar baa qabriga iyagoo dul jooga ay ilaahay barayaan markaas ilaahay ka aqbalaya markaas ay oranayaan wariyaala sirta ducada leedo ka aqbalayaaba waa qabriga inuu joogno dadna qabri inuu tagaya arrimahaas sheekhu yani waxa weeye u tilmaamaya marka waa ducadu waa muhiim ad-ducaa ka silaah bay dhahan culimadu ducadu waa hubko kale oo hubka ma waxa loo baahan yahay inuu af lahaado oo kaliya mise cidii yani waxa weeye hubka isticmaal lahaydna inay qof xoog leh quwad leh ay tahay bala baahan de waxa weeye hubku inuu marka hore af leeyahay cidii yani waxa weeye isticmaalaysaana inay quwad leedahay ay hubkan wax isticmaali karto Soomaha ducaduna waa lamid yani waxa weeye waa inuu yani waxa weeye ducada marka hore duco khaalisa ay tahay
عدن استعمال سان عد خالصه إلهي سبحانه وتعالى أدو وحكا أقبل كرو يعني وحوي أن ذنوب كل حجرين وإنو يهي موانع دينا وإنا مقنتها وحيابا كودي إن دعاء يعني وحوي لا أقبل وإنا وإنا نتشرين أرمها سهدي كل مان دعاء يعني وحدي ولا أقبل ولا المقطع إن أنت سنكسر كوبنا إن شاء الله تعالى مقاطع كلا أو فائدة بدن إن شاء الله تعالى waxaynu isku dayeynaa in aynu soo duubno oo arrimahaas ku saabsan ducada iyo macaasida iyo yani waxa weeye ku saabsan channelka an-nasiha subscribe saara like na saara walaalihina la wadaaga barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran.